الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدحوينها جمهورية سومالان سفيرك دولة UK Soomaaliya Somaliland gudoomiyaasha xisbiyada mucaaridka xubnaha golaha wasiirada DBL iyo mudanta iyo marti sharafta kale dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. marka koobaad dhamaantiin anagoo ku hadlaaya magaca NOC-ga amba National Oversight Committee-ga oo Dr. Saad Chairman oo yahay oo ka shaqeeya mashruucan guud ee corridor-ka waan soo dhaweynaynaa soo dhawaada. marka xiga aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa inaad nagala soo qayb gashaan xafladan aynu maanta joogno. ujeedada kaliya aynu isugu nimid ujeedadaas waxa weeyaan inaynu dhagax dhigno mashruuca anagoo aan u bixinay Hargeysa Bypass oo maanta uu madaxweynuhu dhagax dhigi doono iyo safiirka dowladda Ingiriiska. runtii haddaan dib ugu yar noqdo inta badan mashruucan Berbera Corridor oo u qaybsan 4 component amba 4 waaxood. qaybta koobaad waxa weeyaan in la hormariyo dekedda Berbera waxay loo maalgeliyay horumarinayna DBL. qaybta labaad waa wadada from Berbera to Wajaale oo iyagana jecel lahay iminka aynu gacanta ku hayno. qaybta saddexaad waa qaybta tamarta oo inaynu wadaagno Ethiopia iyo Somaliland electricity interconnectivity. qaybta afraadna waxa weeye qaybta telecommunication-ka waliba gaar ahaan fiber optic-ga inaynu iska kaashano dowladda Ethiopia iyo dowladda Somaliland. marka runtii afarta qaybood inta badan corridor-ku uu yahay ma aha wado kaliya. haddii aan u soo noqdo wadadu waxay u qaybsan tahay 6 qaybood. 5 qaybood oo kamid ah waxay naga maalgelinaya dowladda Imaaraadka Carabta oo jecelahay in halkan uga mahad celiyo. waxa weeyaan 0 kilometer ilaa 78 oo qayb ah section ah. qaybta labaad oo ah 78 ilaa iyo Hargeysa. qaybta saddexaad oo ah bridge-yada oo ah 6 bridge oo 4 kamid imka gacanta lagu hayo iyo 24 Calfar Burgos. waxaa kamid ah qaybtan imka joogno oo ah British Hargeysa Bypass sidoo uu sheegay gudoomiyaha tiimka BID waa 22 kilometer iyo badh. waxaa kaloo jiri doona qayb labaad oo aanu ka wada soconno qolada dowladda Ingiriiska inay nagala shaqeyso oo ah Wajaale lafteedu waxay ka mid tahay caqabadaha ka jira wadadan oo iyada lafteedu u baahan in loo sameeyo bypass. runtii koska loo allocate gareeyay amba loogu talagalay wuxuu ahaa marka hore 22 milyan. halkan waxaynu ugu talagalnay 17 milyan. qaybta Wajaalana haddaanu imaanin imka waxa inta badan jira waxoogaa variation ah oo qoladan la dalbanayo, laakiin qorshe wuxuu ahaa in la dhiso qaybta kale ee Wajaale oo iyaduna noqon doonta sida Hargeysa Bypass oo kale magaaladu maadaama ay saxmad tahay xagga traffic-ga in la sameeyo. waxaa kaloo jira qaybta Kalabayd iyo Wajaale oo iyada lafteedu kamid ah lacagta la bixiyay. waxaa imika insha Allah daraasad lagu bilaabi doona qaybta Hargeysa iyo Wajaale iyo Hargeysa dhexdeeda oo insha Allah jecel dowladda Imaaraadku inay inaga caawin doonto mustaqbalka dhow. mudane madaxweyne waxaan jecelahay inaan halkan ka xuso una mahad celiyo dadweynaha Somaliland guud ahaan iyo caasimadda. muddadii aan hawsha gacanta ku haynay waxa dadka Somaliland ay ku tabaruceen in ka badan 1736 balood oo dhul ah oo ay wadadu martay oo marka la qiimeeyo noqon kara ku dhawaad 17 milyan oo dollar. marka aynu ku dhufano waliba lacagta ugu hooseysa 10 kun oo dollar. dadkeenu ama dadka reer Somaliland way ka qayb yihiin imika mashruucan. qof la siiyay magdhow amba compensation la siiyay ma jirto. waxaan jecelahay madaxweyne inaan halkan uga mahad celiyo dowladda hoose oo qayb weyn ka qaadatay inay hawshaasi noo suurta gasho oo qayb ka ahayd inay aasaan qaybtii West Dam-kii nagala qayb qaatay xabaalo wadadu ay ku beegantay oo 3 meelood ahaa sidii loo saari lahaa. waxaa kaloo jecelahay
inaan halkan uga mahad celiyo tiimka BIU-da oo runtii si hagar la'aan ah hawshan qayb uga ah. waxaan kaloo jecelahay in halkan uga mahad celiyo dowladda Ingiriiska oo leh maalgelinta mashruucan. sidoo kale waxaan jecelahay in halkan uga mahad celiyo dowladda Imaaraadka Carabta oo iyadoo lafteedu shanta qaybood oo kale ee la dhisi qaymo socda imkaas 4 qaybood baa inoo socda. qaybtii section 1 iyo section 2 iyo ayaa socda iyo bridge-yadii section 4 oo ah qaybtan Hargeysa bypassna iyadoo imka waxaanu wareejinay November 19 sanadkii hore. qorshe wuxuu ahaa inaynu bisha koobaad dhagax dhigno laakiin COVID-19 ka awadii ayaanu dib ugu dhacnay.